halkan baxda wuxuu ahaa meel oomana wuxuu ahaa meel bahal joogo annagoo furayo ahoo aniga nin ina xuseen gurey oo dhintay wuu dhintay allah u naxariistay la yidhahda xasan cawle oo la joogna barqadiiba qaalin lodii aan la joognay ee baa libaax ku cunay arrintaa waan ka joogay waxaan ka joogay ayadoo intaan isniriid ceel laasa ceel anigu aan qoday oo 21 mitir oo sabradan qoday oo ragga iga korqadeeya rag yar yar yihiin oon ka cabsi qabo dhagaxa inay ku soo daayaan aynaba dhacday maalin aniga dhacdaan hadda bidixdeeda fadhiya oo ceel ku jirto tana bahal gardeel la yidhaahdo oo sariir leh inuu ugu soo go'ay oo ceel si loobadiiba ka joogta qarka markuu makaabka marayo oo xarigga u soo go'ay silcaas baa lagu joogay baxdo ceelkan la yidhaahdo baxdo markaan taariikhdiisa dib ugu noqdo sidii raggii horeba u sheegay 7 ceel cad buu ka mid yahay ingiriis baa dadka jooga ku soo xukumay talyaani baa ku soo xukumay etoobiya Haile Selassie ku soo xukumay intaa taariikh buu ahaa waxa ahaa ceelkan ceel da'weyn oo wax badan soo maray khataro badanna soo galay ama colaad ha ahaato ama oomane ha ahaato ama qaxar ha ahaato ilaahay mahadii hadda ceel biyaro weeye colaado sokeeyo way ka dhaceen oo tii ninka gebyahayadoo dhahayay annagoo higlaaliya fadhina haadha baraheeda annagoo ilaah baa hodmana haybadna la siiyey nimankii talada laga haadiyaa hiifa aadliga halkaas waa kii gabayga mariyey warsamageli taariikhiisu ceelkan way dheer yihiin qoon fara badan waa lagu soo maray colaado kaloo ka dambeeya oo soomaalida dhexdeeda way ka dhaceen amxaaradu xilli maaragtay dhudub oo 15 kilomitir u jira xilli xidigsayn la yiraahdo dadka ay ku baabi'isay oo ay ku laysay baa jidha dawladdii Haile Selassie ilaahay mahadi maanta waxa dhacday gumaysiga xoogaa ilaahay wuu naga la difay oo awal gaadiidku nooma soo geli jirin baxdo ceelka la yiraahdo waa ceel Cumar Maxamuud oo dhan ka dhaxay waana afkiisina waa muuqda ninkii Cumar Maxamuud beel baa loo qodan jiray sanadii qolaa qodan jirtay waa lagu nacfi jiray sidaas taariikhdiisu ahayd alxamdulillah tacab baa laga qabcaday baa laga kala qoday raagaa la qoday waa lagu liibaanay waxa uu leeyahay dhul adduun ah bannaan ah oo la yiraahdo bakadii higlaale iyo buur lacdanle oo bakada ah oo la yaqaan bay leeyihiin bakadahaas waxaa ku caan ahaa waa meeshii xasan sheekay ninkii la oran jiray dega jiro meesha la yiraahdo waxaa ka mid ah salaamu calaykum ninka dhudub ka soo kacana ayadu ku hooyan jiray ninka galaadi ka soo kacayadu ku oran jiray sidaasay aan ku ahaan jirtay laamii waxa ku yaala laamo carbeed la oran jiray oo cida carbeed u degi jirtay oo caamka ku ahayd intaas cimrigayga aan joogay ceelka baxdaan joogi jiray ceelkaas taas ku ahaan jiray 7 ceel cad buu u dhaxeeyaa 3 waxay ka xigtaa galbeed 3na waxay ka xigtaa meesha leena bari baxdaa la yiraahdaa galbeed waxa ka xiga galaadi iyo galo iyo qorrof ka soo baxna waxa ka xiga bixis iyo dhudub iyo ceelfurdaa intaas ceelshaasa oo qaar la soo yahay qaarna ceelsha yahay baa ku noolaan jiray oon waa ku soo maray tubdheer waa ku soo bahaniya waa ku soo maray abaariya naanaga waa ku soo maray waa meel dad badan baa hadda ku nool dhinac waxay ku leedahay dul waxaa la yidhahdaa low iyo lama degaan waa dhul qari ah waa dhul aan ceel iyo baraaga midna lahayn waa dhul dhinacaan ka gasha ilaa dagaal ka socota ilaa haatan saaxa ka xandhaala iyo ceel laga qoday dhinacan waa ka fogaataa iyaduna tan iyo qorrof iyo gashaa waa dhul geelu daaqo dhinacan waxay ku leedahay dooxo ceel leh oo dhudub baxdo haddii dooxada isu madhay leedahay ahaan jidhay bahal dadka cuna libaax la yiraaho hawd bay ahaan jidhay gaari ma geli jirin
waxyaabaha noocaasa lagaga noolaa waa lasoo dhaafay taariikhdaas taariikhdaas soo maray. xorriyad baan helay kililka intii maaragtay ismaamulka la siiyey gaadiid baa noo soo galay waxaan xorriyad u helay barkada inaan qodanno oo sibirkud nooga yimid sibirkud kontrabaan buu ahaa markaan anigu hadda barkadaa hore qodayey warqad baan waxaan ka soo goosta booq in la ii ogolaado sibirka darteed. waa ceel xagga diinta horumar ku leh, waa ceel kitaabaha laga galo diinta, waa ceel malcaamado badan oo qur-aanka laga dhex galo, waa ceel khaatimiin leh, waa ceel ay ku xiran yihiin xarumaha diinta oo ay ka mid tahay sheekh cabdullaahi ay ka mid tahay ay ku xiran yihiin ay degan yihiin waxna ka qabtaan. ceelkaasi ceelka noocaasi weeye. waxaana soo maray laamigii, waxaana soo maraya cafiya masaaana yeele. waxaanu maanta rajaynaynaa inay noqoto magaalo bandar ah oo hadday motor yeelato beerihii bay kontontaa laga sameeyey leedahay. waxay leedahay dhul caduun beeraha haddii ku habboon, waxay leedahay dhul dooqsin, waxay caan ku tahay ciddii degta xoolaha. waa meel hodan ku ah oo ilaahay xoolaha hodan ku horay. waa haddana xoolaha laftigoodaan idiin soo sawiraynaa iyo dhulka daaqsinta. waxaan jeclahay inaan idiin soo sawiro. alxamdulilaah, ilaahay baanu ku barinaa, ilaahayna waa noogu gargaaraa. cimilada iyo abaarta markii dhacdo waa meelaha lagu soo baxsaday ka mid tahay. dul loo cararay leedahay oo lagu dhunto, bannaan la daaqay leedahay, garow la joogay leedahay, dhul beera iyo laga samayn karay leedahay. maasha allah weeye. waxaa laga qoday oo bulshada baxda ka qoday ceel tiro badan oo hadda la cabo intaan matoorkan badbaado oo ilaahay baa badbaadana la keenin. waxaa dhici jiray hadda ka hor ceelkan oonka daraaddiisa 220 kilomitir gaalkacyo u jidha iyo bacaadweyn in looga arooro oo 7 hamayn ama 8 hamayn waqtiga dhaanka uu ka dhaxo. aniga waxaan soo marnay anagoo geed shaah lagu karinayo intaan makhaayad soo fariistay oo nin aan walaalanahay oo aniga asagoo arigu iskugu jiro arigayagii berri kalan yahay oo meel biyo looga helaana ayna jirin. nin ceelka wax ka deganaayoo mareexaanoo reer dalala oo cere aadan geesay la yidhahda hadda wuu nool yahay inuu intuu makhaayadii soo istaagay yidhi majeerteenow ari 9 qalay baan ceelka keenay, ceelkan ku soo arooriyeyna waa la cabbay, ariga ma oon baan ku kaxeeyaa mise waad waraabinaysaan. dadkii kale inay naxeen oo aad ay u aamuseen inuu xanaaqtamay oo yidhi maxaa la iga aamusaya ma ariga ama la ii waraabiyo ama waxa la yidhahda waxba ku silmayna la yidhaahdo. intaa marka hadalkii marayo reerkaan rabo inaan arigu berri iiga cabbo fulanya sidii barkadu u qafulanya waana la ilaalinayaa. ceelka furiisiyo jeebka ku jiraan intaan u dhiibay baa waxaan ku idhi ceelkaas orod ka waraabsa ariga. ariga ceelka wuu deeqay, wuu ka waraabsaday, wuu u dhuftay. wuxuu igu yidhaahday arigii seedaad odhanaysaa. ariga ilaahay baa waraabiyaan ku idhi sidii bay noqoto ilaahay baa waraabiyo cerka ka waraabiyo. waxyaabahaasaan ka soo joognay ceelka. ilaahay mahadi intaas baan hadalkayga ku soo ururinayaa. assalaamu calaykum.